hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa madaxda maamul goboleedyada dalka ugu baaqay in aanay ka tagin magaalada Muqdisho ilaa inta laga xaqiijinayo dhaqangalka heshiiska siyaasadeed iyo hanaanka doorashooyinka dalka. Xaajir Cabdiqaadir Nuur ayaa inoo faafahinaya. shir jaraa'id oo uu ku qabtay hoogiisa Muqdisho hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayuu ka hadlay qodobo ay kamid ahaayeen heshiiskii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay ka gaareen hanaanka doorashooyinka dalka. qodobadii madaxweyne Farmaajo ku sheegay inuu ka tanaasulo doorasho qof iyo cod iyo kuraasta gobolada waqooyi. siyaasiga ayaa bilowgii shirkiisa jaraa'id ku dhaliilay qodobada madaxweyne Farmaajo waxaana uu sheegay in madaxweyne Farmaajo damciisu ahaa muddo kordhin balse madaxda dowlad goboleedyada ay cadaadis dheer ku saareen inuu ka tanaasulo. waxaa runtii aad xushmad darro ahaa horena u dhacday shirkii Dhuusamareeb labo markii la soo gabagabeeyay oo ay madaxda dowlad goboleedyada ku sharfeen madaxweynaha hadalka ugu dambeeyo inuu yeesho amaan inay u soo jeediyeen wixii uu ku hadlay Soomaalidu hore u dhageysatay haddana asagoo marti loo yahay fila Soomaaliya jooga inuu deelqaafkii aad maqasheen oo dadka Soomaaliyeed idil ay maqleen oo ku hadlay aad iyo aadan uga xunnahay. hadalkaasna ma ahayn hadal u qalma cid mansabka ugu sareeya ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya haysa. waxa la badbaadiyay runtii waa masiirka dalkan, waxa laga badbaadana waxay tahay ku darsi. madaxweynahana wuxuu doonayay waxay ahayd muddo kordhis, maalina doorasho qof iyo codna ma doonin, mana aha in lagu marsiyoodo waxaana jirin oo shaqadeeda aan la qabanin. waxaan dhihi karnaa ku celcelinta oo madaxweynaha ku celcelinaya doorasho qof iyo cod ah waa wixii la oran jiray kalimatu xaqin urida biha albaadil ay ahayd hadal xaq ah laakiin loola jeedo xumaan iyo baadil loola jeedo ayuu ahaa. madaxweynaha haddii uu tanaasulay wuxuu tanaasulay hadduu ka tanaasulay waa extensionkii iyo muddo kororsigii. tanaasulkiisa waxaa tilmaam u ah caddayn u ah inuu dib habeen ku sameeyo inta ka dhiman mandatekiisa hay'adda nabad sugidda iyo taliska nabad sugidda oo caadeystay inuu ku dhex milmo siyaasadda. dhinaca kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa madaxda dowlad goboleedyada waxa uu soo jeediyay in aysan Muqdisho ka tagin inta laga dhaqan gelinayo qodobadii ka soo baxay shirkii doorashooyinka. waxaana ka rabnaa madaxda inaysan Muqdisho ka tagin ilaa heshiiskaas uu meel maro oo ujeedadii laga lahaana loo gaarsiiyo inaysan ka dhaqaaqin oo ay sugaan ilaa inta baarlamaanka la marinayo. baarlamaankana waxaan leenahay waa ognahay inuu madaxweynaha dhamaaday 2 bilood ay ka harsan tahay iyo siyaado. sidaas daradeed heshiiska inaad meel marisaan waa heshiis siyaasadeed inaad meel marisaan eedda iyo mas'uuliyadana xaqiina loo soo laaday inaad idinku eedda qaadin mas'uuliyadda fashalka dalka in doorasho qof iyo cod laga qabto xukuumadda ayaa iska lahayd, dowladda oo madaxweynaha hogaaminaya ayaa iska lahayd. sidaas daradeed idinku inaadan wax mas'uuliyada fashalkaas aadan qayb ka noqonina una diyaar garoodaan dalka inuu doorasho u dareero oo wax caqabad aad ku noqonin heshiiskaas asaga ah yaan ka rajaynaynaa baarlamaankana. ugu dambeyntii waxa uu aad uga hadlay habka loo qorsheeyay kuraasta gobolada waqooyi waxaana uu madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay inuu musuqmaasuqayo kuraastaasi. meesha la doonayo in la dhaco ama la boobo waa garanaynaa waa doorashada ku aadan xubnaha baarlamaanka ka soo galaya Soomaaliland. sidaas daradeed arrintaas waxaan u baahanahay in ay noqoto arrin lagu wareejiyo mas'uuliyaddeeda dadka deegaankaas ka soo jeeda ayaguna ay maamushaan oo ay maamulkeeda ayagu ay yeeshaan. arrintaasna waa arrin aan indhaha ku hay doono oon har iyo habeen aan daba taagnaa doono jihooyinka ay qusaysana aan kala hadlayno. sidaas daradeed waxaan rabnaa walaalaha ka soo jeeda Soomaaliland codkooda in la maqlo. Haajir Abduqaadir, RTN TV, Muqdisho.